Warbixin ay dowladda Kenya u gudbisay Jimcihii maxkamadda caalamiga ah ayay ku sheegtay inaysan ka qaybgalaynin doodda dhexmaraysa iyaga iyo Soomaaliya ee la xiriirta xadbadeedka la isku haysto. Kenya waxay ku andacoonaysaa in COVID-19 oo aad u saameeyay dhaqaale ahaanna hakiyay. Sidoo kale waxay sheegtay inaysan ku kalsooneen garsooraha maxkamadda maadaama ay tiri waxaa ka mid ah garsoore Soomaali ah oo ay ula jeedo Cabdulqaabi oo dhawaan xilkii ugu sareeyay dhamaystay balse ah xubin sare oo maxkamadda ah. Kenya tiro 3 jeer wax ka badan ayay kiiska dacwadda badda ay dib u dhigtay oo ay ka gaabsatay inay dood gasho. Kenya waxay ogtahay sharcigan inaysan macquul ahayn inay fagaare caalami ah la shartimaado sheegasho aan cadeymo wadan maadaama xadbadeed caalami ah uu og yahay inay badda ay sheeganaysaa ee Soomaali leedahay. Sidaa daraaddeed marna aysan macquul u noqonaynin inay si sharci ah ku qaadato, waana sababtay u doorbidayso in arrinka lagu xaliyo is-afgarad dhexmaraya iyada iyo Soomaaliya maadaama ay xagaas awood ku leedahay eena suuragal u tahay inay hesho badda. Balse Soomaaliya oo habka cadaaladda uun awood ku leh ayaanan marna bedelin go'aankeeda. Haddaba maxaa keenay in xadbadeedkan aadka u ballaaran sababta ay Kenya u doonayso oo ahmiyad ballaaran ugu leedahay? Waa 2 sababood. Tan koowaad oo ah in haddii ay Soomaali yeelato wayba leedahay ee sharci u noqoto in Kenya ay galayso xero badeed oo dhan oo aan waxba dhaamin dal bilaa bad ah ama bilaa biyo caalami ah oo kale. Maadaama dhanka kale xadbadeedkaas oo kale ah ay Tansaaniya ka leedahay oo ka dhigaya in maraakiibta soo galaya biyaha Kenya ay soo marayaan Soomaaliya oo lagu canshuuraya, kuwa dhanka koonfur ka imaanaya ay soo marayaan Tansaaniya oo lagu canshuurayo, taasoo dhibaato weyn ku leh dalkeeda. Arrinta labaad ee muhiimka ah oo ay ku doonayso ayaa ah in xadbadeedkaas uu ku jiro ama ceegaaga shidaal aad u badan oo diyaar ah. Waxaa ku yaal ilaa 4 block oo weliba ay Kenya qorsheynayso inay shidaal kala soo baxdo oo shirkado caalami ah heshiis la gaadhay, taasoo keentay in Soomaaliya ay kiiska maxkamadda u gudbiso, sababtayna in shirkadihii ay shaqada ka hakiyaan oo loo diido. Kenya qodobka ugu weyn ee ku doonaysa ayaa ah in xilligii madaxweyne Sheekh Shariif wasiirka qorsheynta oo ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu saxiixay heshiis ahaa in labada dal ay ka wada hadleen arrinka badda oo Kenya siisay damac dheeri ah oo ku doonayso xadbadeedkaas maanta arrinkiisu taagan tahay, waana heshiiska dooda geliyay xadbadeedka Soomaaliya.